الرحمن الرحيم isbahaysiga isbedel samaynta Soomaaliyeed isbahaysigu wuxuu aaminsan yahay in aan wax horumar ah laga gaarin habsimi u socodka howlaha doorashooyinka waxaana cad in si ula kac ah loo abuurayo jahwareer lagu doonayo in mugdi lagu geliyo mustaqbalka doorashooyinka Soomaaliya guddiga go'aankiisa ma sababayn ma bixin garowshiyo mana tilmaamin tallaabooyin kalsooni gelin kara shacabka Soomaaliyeed isbahaysiga iyo beesha caalamka taasoo lagu aamini karo guddiga in uu hawshiisa gudan karo isbahaysigu wuxuu aaminsan yahay in tallaabadani ay weyqayso jiritaanka sharciyadda hay-adaha federaalka maadaama madaxda federaalka si aan dastuuri ahayn xilka ku hayaan waxay kaloo horseedaysaa xasilooni darri siyaasadeed iyo qalqal amni haddaba si looga badbaado firaaq dastuuri ah loona dardargeliyo howlaha habsami u socodsiinta doorashooyinka wuxuu isbahaysigu mar kale ku celinayaa mowqifkiisa ahaa in mudane xasan sheekh maxamuud uu xilka wareejiyo lana dhiso xukuumad farsamo oo fududaysa hirgelinta howlaha doorashooyinka 2016 wuxuu kaloo isbahaysigu si weyn uga soo horjeedaa go'aanka aan caqliga ahayn kana baxsan awoodda guddiga federaalka ee doorashooyinka dadban taasoo uu ku doonayay in doorashooyinka xubnaha baarlamaanka iyo aqalka sare ee ka soo jeeda gobolka Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe lagu qabto magaalada Muqdisho isbahaysigu wuxuu u arkaa in ujeedada ka dambaysa go'aanka ay tahay in loogu daneeyo ololaha doorashada ama dib u doorashada ee mudane xasan sheekh maxamuud wuxuu isbahaysigu ka digayaa cawaaqib xumada go'aankaas ka dhalata taasoo horseedi karta colaad sokeeye iyo aqoonsi la'aan sharciyada natiijada doorashada haddii Muqdisho lagu qabto mahadsanidin dhammaad isbahaysigan ayaa sii adkeeyay war-saxaafadeedkan ay ka soo saareen dibdhaca doorashada iyagoona ku tilmaamay waxaana xalaal ahayn lagana leeyahay dana gaar ah waa kuwan ayagoo amuurtaasi dul maraya isbahaysiga waxaan aad iyo aad runtii aan uga soo horjeednaa go'aanka sida joogtada ah dib loogu dhigayo doorashooyinka mugdina loo gelinayo masiirkii ayatiinkii mustaqbalka doorashada mugdigelintaas iyo iftiin la'aanta la xiriirta howlaha doorashadana waxay keeni kartaa xasilooni siyaasadeed dalka inuu galo taasoo sababta amni darro iyo dowladda hay-adaha dowladda Soomaaliyeed kama hadlayna ashqaasta madaxweynihii ra'iisul wasaarihi ka hadli mayno iyo afhayeen baarlamaan waxaan ka hadlaynaa jiritaanka sharciyada dowladnimada Soomaaliya inay arrintan mugdi geliso sababtoo ah Soomaaliya waxa uu federaalkii waxay ka baxday ku meel gaarka ah 2012kii wax allaale iyo wixii looga bixi lahaa ku meel gaar ayadoon la dhameystirin ayaa la adduunku ogolaaday in la siiyo dowladda Soomaaliyeed sharciyad ay uga baxday ku meel gaarka waxay ahayd dowladda hadda jirta inay dhameystirto waajibaadkii ku meel gaar looga bixi lahaa oo ay kamid tahay inay qabyo tirto dastuurka doorasho qof iyo codkiisa ay qabato maamuladii gobolada dhismadoodii ay dhameystirto federaalka amnigii la sugo kala dambeyntii sharcigii la soo waxaas oo dhan iyadoo la sameeynin ayaa mandate-kii dowladda ayuu dhamaaday sharci darro ayaa lagu fadhiyaa xafiisyada dowladda doorashooyinkiina guddiga doorashada maalin ku xigta dib ayay u dhigayaan taas marka waxay keeni kartaa in adduunkana ka quusto Soomaaliya sharciyadii hay-adaha federaalkana ay lunto iyadoo aan ognahay in madaxda haatan joogta xilka ay ku hayaan si xaaraan oo xalaal aan ahayn maadaama muddadoodii ay ka dhamaatay marka annaga waxaan shaki weyn ka qabnaa in guddiga doorashada oo karti u leeyahay madaxa bannaan doorashada dadban inuu karti u leeyahay inuu hawsha gudo karo inuu karti u leeyahay shaqadii loo xilsaaray inuu qaban karo sidaas daraaddeed ayaan waxaan rabnaa in isbahaysiga madaxda muddadooda xilka dhamaaday NLF-ka ama madasha qaran madaxdeeda iyo beesha caalamka in la isugu yimaado shir degdeg ah dibna loo fiiriyo cidda lagu aaminayo olaha doorashada qabashadeeda iyo hogaaminteeda intaba waxaan soo jeedinoo arkaysaan xukuumad farsamo in la dhiso oo shaqadeeda ay tahay inay fuliso doorashooyinka ma aamini doono maanta kadib waana ognahay wayna dhici doontaa idinka ayaan dhiinana ku arki doono guddigu haddana inta fadhiistay yiraahdo haddana waa ku darnay muddadii waa la qabo waay kalsooni ma qabno runtii in doorasho la qabanayo mana rabno arrintii in mugdigaas lagu sii hayo waxaan rabnaa wax cad oo xalaal ah oo bannaanka yaalla oo la wada og yahay inay arrintaan u noqoto saas ayaa ujeedada maaragtay maanta war-saxaafadeedkeena oo ahaa waxaan kaloo aan aad uga soo horjeednaa
go-aanka aana sinaba suuragalka u ahayn caqligalna u ahayn oo la leeyahay dadka ergooyinkii shabeellada dhexe iyo hiiraan ha laga soo raro deegaamadoodii oo ha la keeno muqdisho kow suuragal ma aha oo waxaa logistical iyo facility ahaan xataa iyo suuragalnimada xagga logisticana caqli ma aha in dadka deegaanadoodii laga soo raro waxaan kaloo caqli ahayn sharciyada xildhibaanada ka imaanaya shabeellada dhexe hiiraan meeshii la yidhi dadkooda ha loo dhaweey dadkooda ha doortaan in la yidhaahdo xamar ha lagu doorto xaggee sharciyo ka helayaan xildhibaanadaas say u matalayaan hiiraan say u matalayaan shabeellada dhexe suuragal ma aha inna la yidhaahdo jowhar shiraa ka socdo waxaa lagu dhisayaa maamul goboleed aan sharci ahayn haddana doorashadii laguma qaban karo hadalkaas isma waafaqsana iswaafajin uu u baahan yahay annaga waxaan aaminsannahay waxa loogu danaynaya waa musharax gooni ah oo la rabo codka inuu dhowr iyo soddonka 7 xildhibaan ka imaanaysa hiiraan shabeellada dhexe in la boobo ujeedaha meeshaas ku jirto mana aha mandate-ka iyo awoodna uma laha guddiga doorashada dadban arrintaas inuu xadido xataa haddaan raacno go-aanadii ka soo baxay ugu dambeeyey madasha waxaa ku cad in ay arrintaas go-aankeeda leeyihiin madaxda muddadeeda dhammaatay federaalka ah marna laguma sheegi inay tahay mandate-ka ama maaragtay awoodda guddigaas inay tahay marka arrimahaas oo dhan aan shirka uga hadalnay aan shirkeena runtii walwal weyn aan ka qabnaa masiirka iyo ayatiinka ee Soomaaliya waana ogtahay warqadii ka soo baxday ergey gaarka ee qaramada midoobay oranaysay 7 November ayay ku agtahay mandate-ka annagoo taas ka soo horjeedna ayada nafteeda haddana walwal waxaan ka qabnaa in 7 November dib loo dhaafayo dhammaan golayaashii qaraaradii golaha ammaanka la khilaafayo wax allaale iyo wixii ayaga ay ku heshiiyeen madaxa Soomaaliyeed maalin ka dambeysay la khilaafayo la burinayo waxaas oo dhan waa walwal iyo mushkilo aad u weyn waay runtii waana ka soo horjeednaa waana maasantii laakiin waxaa noo muuqata in danaysiga ka dhexeeya ayaga iyo xafiisyada dowladda oo musharaxiinta ay joogaan qaarkood inay howsha hore u soco karin sidaas daraaddeed waxaan rabnaa in dadka mandate-kooda dhammaada mas-uuliyiinta mandate-kooda dhammaadana xafiisyada inay baneeyaan xukuumadda farsamadana muhiim maaha in xukuumad la dhisay hadda jirta laga dhex magacaabi karaa laakiin waa inay yihiin dadaan hadda xafiisyo tartan loo tartamayaan u taagnayn guddi oo farsamo ahaanoo golaha wasiirada hadda xubnihiisa ugu fircoon iyo kuwiisa ugu muhiimsan guddi xukuumad oo farsamo ah oo hoosh socodsiisa waxaan ognahay hadda road mapka 2012 xukuumadda waday xukuumadda hogaaminaysa uma jeedno marka maadaama ragga hadda jiga ay musharaxiin yihiin oo ay ku mashquulsan yihiin doorashooyinkoodii iyo danaysigoodii waxaan u baahannahay dad ayaga ka madax bannaan laguna kalsoonaa karo lana shaqeeyo guddigan oo gooyana xariga u dhaxeeya guddiga iyo qolada oo u shaqeeya hadda soo magacaabatay guddigan xafiisyo mucayana laga soo magacaaday xafiisyadiina dadkii doorashay u taagan yihiin marka waxaan rabnaa inaan kala jarno laynkaas ma aha waxayna annaga inaan ul sixir hayno laakiin waxaan u baahannahay in laga wada hadlo oo laysku wada fiiriyo waddanka halista u socdana la dareemo haddii bil maanta lagu daray shalayna bil lagu daray berrina bil kale waa lagu dari doonaa marka ma ka bixi karno jahwareer joogto ah iyo mustaqbal mugdiya oo waddanka loo wado annaga ma rabno mana ogolin waa inay cad yihiin tallaabooyinka iyo xalaal waxaa la yidhi barqaa la qasha daahfurnaan iyo waxaan u baahnaa annaga inaan ku socono maaragtay hufnaan inay howlaha ku socdaan taasaa noogu muhiimsan intaan xamili karna marka mugdi iyo musuqmaasuq waan xamilnay sida uu salaad ka dhawaajiyeen haddii dee dariiqadii dastuuriga ahaa sharciga ahaydna la diido oo maxkamaddii ay dacwadii soo diido oo madaxdii ay iska korsanaysa muddadii oo guddigii intuu la soo shiro madaxtooyada shir ku soo qabto maalintii go-aan soo gaarayo haddee adduunka waa ogtihiin oo opshanada dadku ay isbeddel ku sameeyaan waddada keliya dastuuriga maahana waa opshano badanaa furan dadweynaha Soomaaliyeed waa daaleen intii madaxweynaha maalidu wakiil ahaa kacdoon laga waantooba asagaa horseedaya kacdoonka asagaa la rabaa waddanka inuu kacdoon ka badbaadiyo haddii kale waddadaas in lagu tagay noqon doontaa oo shacabka uu soo baxo annagana aan baxno aanan sharcigiina ku raadino maaragtay popular mandate wax la dadweyne kacdoon dadweyne in sharciga lagu raadiyo ma horeysa haddaan hadda waddada aan dimuqraadiga hadda aan saxaafadeedka horaa loo aqriyey intaan ku darahayo anigu waa 3 arrin arrinta ugu horeysa waxaa weeye in doorashadu ay dib loo dhigo dadka dib u dhiga sharciyad ay dib ugu dhigaan ma haystaan maxaase ka dambeeya dib u dhigista marka ugu horeysa sharciyad ma haystaan ay dib ugu dhigaan awoodna uma laha inay dib u dhigaan
ujeeddada ay ka leeyihiinna waa laba arrin waa mid in ay horta daaliyaan dadka ku tartamaya kuraasta in ay daaliyaan oo ay niyad jabiyaan shacabka hamigiisana iyo niyaddiisana in lagu tunto oo shacabku uu ka niyad jabo dadkii kaloo tartamayana ay ka niyad jabaan oo markaas arrintii ay noqoto arrin shacabku uusan dan ka lahayn oo sidii la rabo markaas loo maamusho markuu shacabkii indhaha ka qaado sababtoo waxaad ka niyad jabtay indhaha kuma sii hayn karaysa taasi waa mid bay taas dan bay ka leeyihiin tan labaad waxaa weeye waxay dalbadeen guddigani waxay dalbadeen lacag fara badan lacagta faraha badan leh kuma dhammayn karaan kuma qarash garayn karaan muddada u harsanayd ujeeddada ay leeyihiin marka waxaa waaye inay waqtiga sii dheereeyaan siday cimrigooda u sii jiro siday u helaan fursad ay lacagtaas ku qarash gareeyaan ay u helaan ma aha arrin kaloo caqabad kaloo jirta ma aha taasna waa asbaabta labaad asbaabta saddexaad ee ay dhaheen jowhar iyo hiiraan laguma qaban karo doorashooyinka oo ay ku xijiyeen in ay doonahayaan in cadaado la geeyo ciidamo amisom ah si doorasho loogu qabto maxay ku kala duwan yihiin hiiraan iyo cadaado hiiraan waxaa jooga ciidamo amisom ahaa jooga hadday kuwani ay ku aamineen ciidamadoodii hadday aamini waayeen ay ku aamineen cadaado haddii la geeyo ciidamo amisom inay doorasho ka dhici karto maxaa u diiday hiiraan in ay doorasho ka dhacdo oo lagu soo xulo xildhibaanadooda ayadoo ay joogto amisom waa ujeeddo kale marka oon sax ahayn oon meesha ku jirin waay maxaa looga dan leeyahay marka waxaa looga dan leeyahay dad xamar laga aruursaday een haysan kalsoonida dadka ay matalahayaan ama aan xambaarsanayn dadka ay matalahayaan een kalsooni ku qabin in ay tagaan gobolkoodii iyo dadkii ay dhahahayeen waan matalaynaa oo dareenkooda ayaan ka tarjumaynaa ayaa meeshii la rabaa in la soo geliyo waxaa marka la baabi'inahayaa rabitaanka iyo dareenka shacabka ku nool gobolka hiiraan iyo shabeellada dhexe ayaa la baabi'inahayaa taasi maxay keenaysaa marka waxay keenaysaa xildhibaan khilaaf kala dhexeeyo bulshadii uu ka soo jeeday ama uu ka socday hogaamiye dhaqameedyadoodii qofkaasi marka ma tegi karaya berrito markii xildhibaan laga dhigo ma tegi karahayaa mase mathali karahayaa gobolkii uu ka soo jeeday ma tegi karaya muxuuse ka qaban karaa wey waxaa way marka gobolladaas go'doon ayaa la gelinaya go'doon oo aan la mathalaynin siyaasadda aan loo mathalaynin ayaa la gelinaya kuwaana waxay noqoni kuwo aan awood lahayn oo tiir ay ku tiirsadaan uusan ka dambaynin ee markaas xunba ahoo markii la rabo sidii la rabo loo adeegsado ama wixii la rabo laga fushaday noqonayaan arrinta looga dan leeyahay hiiraan iyo shabeelladana arrintaas weeye waxaan leenahay marka annagu horta ma niyad jabayno hadday idinla ahayd inaan niyad jabno oo aan iska fadhiisanno horta ma niyad jabayno intaasaan soo jeedno waana soo jeedaynaa waddankaana mas-uuliyad baa naga saaran in dowlad wanaagsan ee waddankan dhibka ka saarta dowlad aan garaadaha ku dhiibaynin qabiil dowlad aan mas-uuliyadda ku dhiibayn qabiil dowlad qofka soomaaliga kartidiisa reer kastuu ka dhashay siinaysa in laga dhiso taasaana waddanka maslaxad u maslaxad uma aha dad maaragtay hal qof ka amar qaadanaya maslaxad uma aha waan joogaynaa shacabka soomaalidana ishiisa kama qaadahayo doorashooyinka oo shacabka inuu indhaha ka qaadaan la rabo doorashooyinku iska uu ka sabro arrintaasna kama sabrayno waxaan leenahay marka beesha caalamka markii hore oo ay waqtiga kordhiyeen ayaan Michael Keating kula kulmay meel markaasaan waxaan ku idhi security councilku waxay soo jeedisay waxay tiri no extension adiga oo hogaaminaya beesha caalamkana waxaa tiri no extension maxaad ku tilmaami kartaa kan muxuu yahay baan kan hadda ay sameeyeen muxuu yahay wuxuu dhahay waa extension ka waran baan ri kan haddaan inta aqbalno ay haddana 30 Oktoobar hadday qaban waayeen ka waran arrin dhici karta ma uu dhahay waxaan leenahay 30 Oktoobar waatana waa laga guuray waxaa loo socdaa 30 November waxaan rabnaa marka arrintani in ay tahay taktiik u adeegaysa maslaxad shakhsiyadeed u adeegaysa ee inayna ahayn wax u adeegahaya maslaxad qaran guddigana waxaan leenahay xor ma tihiin dareenka ummadda Soomaaliyeedna kama tarjumaysiin
mas-uuliyaddii ummadda soomaaliyeed oo laydinku aaminayna iyadoo shaki awalba idinku jiray kama tarjumaysiin waxa aad ka tarjumaysiin waxaa waaye 3 nin rabitaankood oo iska soo horjeeda oo laymankooda ayna isu imaanayn aad ka tarjumaysiin waxaad u kala shaqaysiin 3 xafiis baad u kala shaqaysiin 3 xafiis oon isu imaan karin oon wax wadaagi karin oo hal kursi isla raadinahaya ayaad ka tarjumaysiin taas ayaa keentay marka habeenba xafiis inaad ku hoyatiin inaad inta habeenba xafiis ku hoyatiin inaad marka aad waddankan mugdi gelisiin mustaqbalkiina idinkama yeelayno waxaadna ogaatiin arrintani inay taariikhda gelayso qof kastana inuu dembigu galo ummaddan ka galo mas-uul ka yahay waqti ay munaasib tahayna in wax laga weydiin doono inayna si sahal ah ku dhammaan doonin wixii ka dhacana mas-uuliyadda qayb baad ka qaadaysiin dib u dhacaan aad ku ridaysiin ummadda wixii ka dhacana mas-uuliyaddaas waad qaadaysiin yay la tashteen annaka ma nala tashteen soo daraf kama nihin doorashada soo daraf kama nihin daraf baan ka nahay wixii wax lagu bedelahay inuu annaka naqanciyo sabab u sheego waa intuusan ku dhawaaqo intuu madaxweynihii prime ministerkii oo tartamaya la tarashaday ayay ka aqbaleen markaasuu arrintaas ku dhawaaqay waa annaka doorkeenni annakiiyo madaxda kale isku wax baan doonaynaa in ayakii marka uu siiyo rabitaankooda uu siiyo annakana uu dibadda na dhigo oo uusan nagala tashan xaq maaha sidaasna laguma noqdo guddi laguma noqdee shaqaalaad tihiin shaqaalnimadiinana waddan kuma hogaaminaysiin annaku waxaan leenahay iscasila ummadda iska horkeenin ummaddaad iska horkeenaysiin ee iscasilaan leenahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan u malaynayaa warka murtidiisii waa la sheegay muhiimadda ay leedahay maanta war-saxaafadeedkaana waa laga dhawaajiyey ani waxaan doonayaa inaan ku daro 2 ama 3 eray horta waxaan rabaa inaan ummadda soomaaliyeed uga tacsiyeeyo maamul xumada haysata waxaan doonayaa ummadda soomaaliyeed ee adduunka dacladiisa joogo ee maanta ama shalay ama daraad qaar ka mid ah waddanka hindiya lagu daldalayo la rabo in la laayo oo la laynayo oo maxkamaddu soo saartay inay layso oonsan jirin dowlad soomaaliyeed oo ka hadli karta dembiilo soomaaliyeed oo waddan kale ku xiran haddii ay dowlad jirto wuxuu xaq u leeyahay in waddankiisa lagu soo celiyo oo waddankiisa lagu ciqaabo taasaan horta uga tacsiinaya ummadda soomaaliyeed hoggaan xumada haysatay 4 sane la soo dhaafay inkaarta ku dhacday ayaan uga tacsiyeynayaa ummadda soomaaliyeed way baaba'day maalin iyo habeenba waa la laayaa waxaa haysata nolol xumo waxaa haysata daryaal xumo tacsiyadda aan dirayay ka mid tahay haddii aan ku soo noqdo war-saxaafadeedkan maanta jeedinayno guddiga doorashooyinka aanu maba aaminsaniba inay yihiin guddi xalaala waxa ay soo saareen ama waxay soo qoraan ama wax war-saxaafadeedka ay sheegeen aanu ma aaminsani waayo wax xalaal ah ma aha oo turjumaya ummadda soomaaliyeed ka turjumaya sida uu guddoomiye tarsan sheegay waa guddi u shaqaynaya 3 qof oo shakhsi ah beesha caalamka ayaa waxaan rabaa inaan tuso dareensiiyo annaga Cumar Dhagey oo ah madaxweynaha la taliyihiisa khaaska ahaa oo xafiis dawlad ka shaqaynayay intuu war-saxaafadeed soo saaro uu yiraahdo doorashadu dib baa loo dhigayaa anagu ma aqbalayno haddaan nahay ummadda Soomaaliyeed ee doonaysa Soomaaliya inay ku soo noqoto Soomaali baa iska leh gacanta ummaddan haday la rabo inay ku soo noqoto anagu guddigan nama matalaba ayaantii hore waxay soo saareen kontonkii cishe ku darsadeen xaaraan ay ahayd maanta wax cadayna oo sheegayaan ma jirto security iyo waxyaalaha macno lahayn ammaan xumi iyo ayay ku wareegaysanayaan waxaa loo baahan yahay horta guddigu ma yahay guddi sharciyeysan oo sharciga constitutionka u yaala waddankan aaminsan waafaqsan ma yahay horta waa taasaan rabaa inaynu weydiiyo marka waxay soo saaraan sida uu mudane tarsan sheegay waxaa weeyaan ha la baabiyo dadkan ha niyad jabaan ha ku kala dareeraan wax musharax dambe arrintiisa danaynaya ha la waayo laakiin waxaan u malaynayaa madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday arrintaa inuu isagu ku hogoomi doono annagu waxaan u taagannahay samata bixinta ummadda Soomaaliyeed dad saa ku daalaya ma nihin dariiq kastaan ku lugaynaynaa meel kastaan maraynaa beesha caalamkaan la hadlaynaa dacwad ka dhan ayaan waliba gudbinaynaa waxaan idinka digayaa
inaad ummadda Soomaaliyeed eed ku tumanaysaan xuquuqdooda aad dhigtaan waxaan idinka digayaa inaad horta ogaataan xilalka aad haystaan inay xaaraan idinku tahay waayo madaxweynuhu waa musharax ra'iisul wasaaruhuna waa musharax wadankii mataqaanaa hoggaankiisana maanta iyaga gacanta ku haya de sharci adduunka ka shaqeeya ma jiro wadan Afrika kamid oo agteena dariskeena madaxweynihiisa wuxuu yiri waxbaan ku darsanayaa dadkiisii ayaa banaan baxay dadkiisii ayaa islaayay ciidankii ayaa laayay dadkii waayo dadku waxay leeyihiin xuquuq ay ku hadlaan dadka Soomaaliyeed ma laha miya xuquuq ay ku hadlaan midii waa la cuna qabtay waxa la yiri hebel hogaamiye hebel ama mataqaana musharax hebel ma soo dhaweyn kartid elboorka ma tagi kartid caburaada intan dhan ee dadka lagu hayo maxay tahay dalkan Soomaaliyeed shacab ma laha inkaarta haysata dad yahow waxaan idinka digayaa masiirkiina inaad ka tashataan inina yeelin arintan socota waayo idinka ayay mustaqbal darro inii tahay anaguna inta karaanka ayaga ah waxaan ugu ballan ah meel kasta inaan dacwadaan gaarsiino wabillahi tawfiiq madaxdii iga horeysa ayaa carabka ku dhifatay war saxaafadeedkana ujeedada waa ku caddahay hase ahaatee waxaan rabaa in aan dhowr meelood taabto oo ay ka mid tahay magaaladan xamar waxaad ogtihiin xaquuq male in la yiri waxaa loogu talagalay marka saas la dhahay kooxda damul jadiid inay ku kuraasta beelo loogu talagalay inay ku xaddo oo ay ku dhacdo waxaad garan kartiin magaalada Dhuusamareeb damul jadiid lagama taageersano laakiin cadaada laga taageersan yahay waayo waxay ku shaqeeyayaan hiiraan iyo shabeellaha dhexana markay arkeen oo ay ku cibri qaateen galmudug dhismaheedii iyo sida loogu qaybsamay ayay taxadir badan ka muujiyeenoo waxa laga soo wada markay arkeen ay iska diideen wixii damul jadiid ay la damacsaneen maadaama magaaladan marka laga dhigay dhul damul jadiid ilaa dhul mala iidiyo waa koox tuuga ah oo maafiya ayaa dhul laga siiyay marka magaalo madaxdeeda la yiri meel aan la lahayn oo damul jadiid iska leeda lama leh hadaad maqasho waxa way damul jadiid laha ku hoos jirta marka waxa way arintaas hadda waxa hiiraan iyo shabeellaha dhexe loo soo qaadayo xildhibaanadeeda oo loola gelayo mataqaana xalane iyo iskool buluusiya in lagu qaybiyo la rabo xalana laga taageersan yahay kooxda damul jadiid waa arintaas marka yow matala marka xildhibaankii oo xalana lagu dhex dhiso oo kooxda damul jadiid ay soo qorato xagowtiga soo shabeellaha dhaxay hiiraan u taga waa habeenkii xalatiga waa doorashadan doorasho dad banaa loogu magac daray ujeedo kasta ha lagala haadee laakiin waxaa shardiya haddaad xildhibaan naqayso constituentigii aad adiga ka soo jeeday ama meeshii originalkaaga oo ka yimid oo adiga asalkaaga aheeday dadkii aad ka timiday oo aad matali laheeday waa inay kuu doortaan amba ay ku og yihiin amba ay loobinka wax uga jiraan haddii taas la waayo waxay noqonaysaa mid dagaal sokeeyo keenta oo meelay cagta dhigta la waayo corruptionkii kooxdaanu ay dalka bidda haddii tan lagu sii shaqeeyo waxay noqonaysaa dagaal sokeeye oo dib loo abaabulay iyo dhaqan beel Soomaaliyeed ka dhalanaya sidaa darteed marka arrimahaas cid aqbali karta ma jirto isbahaysigan marka wuxuu yahay isbahaysi loogu talagalay isbedel inuu sameeyo hab dimuqraadiyana uu ku sameeyo habkaas dimuqraadiga marka haddii lagula gara waayo kaligaa ma wadi karti marka waxaa lagu qasban yahay marka dadka marka isbedelka sameynaya oo dimuqraadiyad inay ku sameeyaan ay rabaan waxaa laga rabaa marka inay
mar haddii saan la yeelayo inay marka iyagu dalkan aayo hore ka tariyaan oo dowlad ku meel gaara oo dadka ka dhaxaysa oo doorasho keenta oo markaas mataqaanaa shacabka tusaaleysa kuwan meesha joogana mataqaanaa matalaada beenta meesha ka saarta in la sameeyaa lagu qasban yahay marka runtii waxaad ogtihiin 50 casho oo sharci darraha leedihiina la yiri maxkamadan dacwo geynay weli dhig looma dhigin beesha caalamkan la hadalnay dalka sharci kama jiree factories ka jireen factories yaa qoriyo wato ka jireen maxaa yeelay waxay tahay haddii la yiraahdo dadka shacabka la dhigan samaayo wixii bullet proof wata iyo wixii oo qoriyo sita kaliya la dhigansado waxay noqonaysaa sharcigi waxaa ka weyn qoraga hadda qoragina hadda awlaanba shabaab inaan ka dhigna rabno haddii marka cid kastaba ay dimuqraadiyadda u hoggaansami weydo maxay shabaab dadku ka bedelan yihiin marka midda kale al-shabaab iyo damir jadiid adiga xaad ku kala gareen haddii aan sharci lagu dhaqmayn oo aan nidaam lagu socoyn oo aan waqtigu hadduu dhamaado aadan ama guulaysayn ama hanooba aadan sameeyayn oo aadan qof ku wareejiyay arrimahaas marka anagu runtii dib ayaan uga tashan doonaa haddana tan waa hordhac guddiga doorashooyinka waxaa la yidhi biyo dahiran wax dahiran sideedaba waxaa waaye in allaha tacaala dayibun laa yuqbalu ilaa dayiba dadkan marka horeyba waxaa magacaaba dadaan sharciyad haysan marka dadaan sharciyad haysan ciday magacaabeen sharci ma keeni karto mana laga sugi karo waxay noqonaysaa waa soco weyne aan oradno maxaa yeelay kii magacaabay iyo kuwii magacaabay ayaaba sharci darra ku socdo marka inaad hadda aan dhugano oon isha ku hayno oon dhahno iyaga aan wax ka sugno waxay nagu tahay runtii aad iyo aad arrin nasiib darra ummadda ku ah annagana xataa ceeb nagu ah laakiin waxaa la yidhi mataqaanaa waxaasoo waa sur dhagax gashaa la yidhaha dimuquraadiyadiyaa dhagax naga gashay ilaan dadaan ahal u ahaynaa ewa loo dhiibay marka waa adkaysaynaa laakiin tilaabta tan ku xigta waxaan rajayahaa markaas inay noqon doonto mid aan annagu isbeddelkii sidii aan u rabnay haddownan u socohay aan si kalood aan u keenno oo aan jid kale ku keenno maxaa yeelay jidkii tooska ahay oo dimuquraadiga ahay haddii la hor istaagay si dadban inaan annaguna ku keenno waayo aad iyo aad u mahadsantihiin